ciidamada Masar iyo Soomaaliya ayaa dowlad militari oo wadajir ah kaas oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dhulka, badda iyo cirka waxa ay ka sameyn doonaan gudaha dalka Soomaaliya. Tani ayaa noqonaysa markii ugu horeysay taariikhda ee dalalka Soomaaliya iyo Masar ay sameeyaan dowlad noocan oo kale oo ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya sida laga soo xigtay saraakiil Masaari ah. Lama sheegin xilliga dowladda uu bilaabanayo iyo tirada ciidamada ka qaybgalaya iyadoo ay ku soo aadayso xilli labada dal ay sare u qaadeen iskaashigooda militari. Dowladda Masar ayaa doonaysa in Soomaaliya ay soo dirto kumanaan askarteeda iyo gaadiidka gaashaaman oo saldhigyo gudaha gobolada Soomaaliya ay ka samaysato kana qayb gasho howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee dhawaan bilaabanaya iyadoo sidoo kale ay ciidanka Masar gacan ka geysanayaan dib u dhiska ciidanka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee dowladdan ayaa ku soo aaday xilli xiisad kacsanaan ay ka jirto gobolka u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka bilaabatay heshiiskii badda Itoobiya 1 Janaayo ee sanadka 2024 ay la saxiixatay Somaliland. dhinaca kale xiriirka dowladda Masar iyo Itoobiya ayaa fiicneen iyadoo isku hayaan biyo xireenka webiga Niil oo dowladda Masar ay inta badan ku dooday in biyo xireenka ay Itoobiya ka sameysay webiga Niil ay saameyn ku yeelatay qaybtii ka soo gaari jirtay biyaha webiga Niil oo la wada dal wadaagaan.